kulan wacan daawadayaal halkan waa janalka Al-Hurriya News qodobada wararka aan idin hayno kuwooda ugu doorka roon waxaa kamid ah kulan lagu gogol xaarayo dhaxdhaxaadinta madasha xisbiyada qaran iyo dawladda Soomaaliya oo ka dhacay magaalada Muqdisho amaro culus oo dhanka amniga ah oo lagu soo rogay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud dawlad goboleedka Puntland oo war ka soo saartay dilkii xalay magaalada Gaalkacyo loogu geystay taliyihii nabad sugidda iyo sirdoonka gobolka Mudug ee Puntland ciidamada booliska Somaliland oo si xooga kula wareegay xarunta xisbiga wadani ee magaalada Hargeysa iyo xarumo kale oo ku leeyahay deegaanada maamulka Somaliland warar dheeraad ah oo ka soo baxaya mas'uul ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo xalay lagu dilay magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roona wararka aan idin hayno haddii aad janalka ku cusub tahay subscribe saar sidoo kale like iyo share gambaleelkana furo si aad u heshid wararkeena ismaqal xiiso badan saaxiibayaal mar kale ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan kulan lagu dhaxdhaxaadinayo madasha xisbiyada qaran iyo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho xalay waxaa magaalada Muqdisho kulan xasaasi ah ku yeeshay xubno ka socda dawladda federaalka Soomaaliya iyo madasha xisbiyada qaran kaasi oo ahaa mid loogu gogol xaarayo shirka la filayo in maalinta Arbacada ah magaalada Muqdisho ay ku yeeshaan madasha xisbiyada qaran iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo kulanka xalay waxaan wararka aanu helayna ay sheegayaan in looga hadlay sidii xal looga gaari lahaa khilaafka madasha xisbiyada qaran iyo dawladda federaalka Soomaaliya oo muddooyinkii dambe cirka isku sii shareerayay arrimaha doorashooyinka iyo sidii xal waara looga gaari lahaa khilaafka u dhaxeeya madasha xisbiyada qaran iyo dawladda federaalka Soomaaliya oo muddooyinkii dambe ahaa mid hadalhayntiisa magaalada Muqdisho iyo gobolada dalkaba ay ku badatay kulanka ayaa madasha xisbiyada qaran waxa uu matalayay xogayaha guud ee madasha xisbiyada qaran xildhibaan Axmed Macalin Fiqi halka dawladda federaalka Soomaaliya dhankeeda uu ka socday taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo hormuud u ah wada hadallada dawladda federaalka Soomaaliya iyo madasha xisbiyada qaran sababtoodana lahaa ila qarsoodiye oo la helaya ayaa sheegaya in kulanka xalay lagu go'aamiyay ajendayaasha looga hadlayo maalinimada Arbacada ah ee soo aadan kulanka ay yeelanayaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo madasha xisbiyada qaran madaxdooda ee kala ah Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed maalinimada Arbacada ah ee nagu soo aadan ayaa la filayaa in ay kulmaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo madasha xisbiyada qaran madaxdooda waxaana inta badan kulankaasi looga hadli doonaa sidii loo xalin lahaa khilaafka soo kala dhaxgalay labada dhinac wali waxa daawanaysaan daawadayaal wararka janaalka Al-Hurriya News ciidamada booliska Somaliland ayaa si xoog ah kula wareegay xarunta xisbiga wadani uu ku leeyahay magaalada Hargeysa ee Somaliland ciidamo fara badan oo ka tirsan booliska Somaliland ayaa saaka waxa ay gabi ahaanba la wareegeen xarumaha waaweyn ee magaalooyinka Berbera iyo Cerigabo uu ku leeyahay xisbiga wadani wararka ayaa waxa ay sheegayaan in taliyaha booliska Somaliland General Sadiq uu bixiyay amarka ciidamada booliska Somaliland ay kula wareegeen xarumaha xisbiga wadani uu ku leeyahay Berbera iyo Cerigabo iyo deegaanada maamulka Somaliland arrintan ayaa waxa ay salka ku haysaa khilaafka xilligan u dhaxeeya madaxda talada haysa ee Somaliland iyo xisbiga mucaaradka ah ee wadani taasi oo toddobaadkan ka jirtay magaalooyinka ka tirsan Somaliland shalay ayay ahayd markii ciidamada booliska Somaliland ay awood kula wareegeen xarunta dhexe ee xisbiga wadani uu ku leeyahay magaalada Hargeysa halkaasi oo qorshahu ahaa in banaanbax uu ka dhaco hase ahaatee la baajiyay
gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa dhawaan iclaamiyay isku soo baxyo ay dhigayaan taageerayaashiisa ee xisbiga wadani. taliska booliska Somaliland ayaa arintaasi ka soo horjeestay waxa ayna tilmaameen in aan la ogolaan doonin in banaanbaxyada noocaasi ay ka dhacaan magaalada Hargeysa iyo deegaanada Somaliland. markana dhinaca iyo Puntland, shirka golaha wasiirada maamulka Puntland oo shir gudoominayay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdilaahi Deni ayaa lagu ansixiyay miisaaniyadda sanadda 2020 ee dowlad goboleedka Puntland. miisaaniyadda ayaa gaaraysay 346 milyan 416,158 dollar. afhayeenka madaxtooyada maamulka Puntland Jaamac Dabrani ayaa ka warbixiyay kulankaasi golaha wasiirada ay ku ansixiyeen miisaaniyadda sanadda 2020 ee maamulka Puntland. shirka golaha wasiirada ee dawladda Puntland ee toddobaadlaha ayaa qabsoomay. waxaa shir gudoomiyay madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdilaahi Deni iyadoo uu goobjoog ahaa madaxweyne ku-xigeenka dawladda mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash. shirka ayaa waxaa looga hadlay guud ahaan amniga Puntland iyo miisaaniyadda dawladda ee sanadka 2020. xaaladda guud ee amniga ee Puntland ayaa laga hadlay iyo qorshayaasha ee lagu horumarinayo amniga Puntland. kadibna waxaa loo gudbay oo intiisa badan shirka looga hadlay miisaaniyadda dawladda ee sanadka 2020. wasaaradda maaliyadda ee dawladda Puntland ayaa golaha u soo gudbisay miisaaniyadda sanadka oo dood iyo falanqeyn kadib uu golahu ansixiyay, taasi oo dhan 346 milyan 416,158 dollar. miisaaniyadda waxyaabaha ku jira waxaa kamid ah in boqolkiiba 13 loogu talagalay horumarinta gobolada, kaabayaasha dhaqaalaha oo ay kamid yihiin dhismayaasha iyo dayactirka wadooyinka. sidoo kale waxaa miisaaniyadda ku jira oo qondo loo sameeyay sanduuqa horumarinta dhalinyarada oo wax weyn ka anfacaya guud ahaan dhalinyarada Puntland. miisaaniyadda sidoo kale waxaa qondo ku leh haweenka oo arrimahooda lagu horumarin doono. miisaaniyadda waxa ay qondo loogu siyaadiyay sanadka dimuqraadiyeynta Puntland iyo hirgelinta nidaamka xisbiyada badan, inagoo ogsoon in dawladdan ay tahay tii ugu horeysay oo muddo 7 bilood ah ku magacaawda gudida doorashooyinka Puntland oo iyadana toddobaadkan ansixiyeen golaha wakiilada ee dawladda Puntland. qondo ayaa loo sameeyay oo miisaaniyadda ugu jira. waxyaabaha kale ee miisaaniyadda ku xusan waxaa kamid ah in la soo siyaadiyay hay'ad cusub oo ah hay'adda farsamada gacanta ee dawladda Puntland, taasi oo iyana qondo loo sameeyay si loo horumariyo xirfadda dhalinyarada reer Puntland oo ay mustaqbal wanaagsan u yeeshaan dhalinyaradu. waxaa qondo loo siyaadiyay arrimaha bulshada, si gaar ah caafimaadka, biyaha iyo deegaanka. sidoo kale waxaa xusid mudan in miisaaniyadda ay waxbarashada ugu jirto boqolkiiba 8 si hore loogu qaado loona tayeeyo waxbarashada ardayda reer Puntland. wali waxaad daawanaysaan wararka janaalka Al-Xurriya. warar dheeraad ayaa ka soo baxaya dil degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose loogu geystay mas'uul ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xalay degmada Afgooye ku dilay isku duwihii wasaaradda maaliyadda ee maamulka Koonfur Galbeed u qaabilsanaa degmadaasi. dilka ayaa ka dhacay control bar Ismaaciil oo laga galo degmada Afgooye, waxaana mas'uulka la dilay lagu magacaabi jiray Nuur Faarax Nuur Xawaad. wararka ayaa sheegaya in dilka uu ka dhashay muran la xiriira canshuurta laga qaadayay kontaroolka oo soo kala dhaxgalay askariga iyo sidoo kale isku duwaha wasaaradda. askariga dilka geystay ayaa la sheegay in gacanta lagu dhigay xilli uu isku dayayay in goobta uu iskaga baxsado. amarro culus oo dhanka amniga ah ayaa lagu soo rogay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud kadib kulan degmada Gurceel ay ku yeesheen taliska ciidamada NISA, booliska iyo xubnaha guddiga amniga oo uu shir gudoominayay gudoomiyaha degmada Gurceel Cabdulaahi Maxamed Barre ayaa waxaa lagu go'aamiyay qodobo badan oo la xiriira dhanka amniga, amarrana laga soo saaray. kulanka oo saacado badan qaatay ayaa waxaa inta badan diiradda lagu saarayay dhinaca amniga maadaama degmada Gurceel uu ka dhacay isbedel dhinaca hay'adaha amniga ah, isla markaana ay ka howlgalayaan hay'adaha amniga Soomaaliya, waxaana la soo saaray amarro la xiriira dhinaca amniga. amarada kulankaasi laga soo saaray ayaa waxaa kamid ah
in gudaha magaalada lagu arki karin dad wata hub sharci darro ah, isticmaalka waxyaabaha maanka dooriya iyo amro la duldhigay milkiilayaasha hoteelada degmada Gurceel. waxaana kulanka intiisa badan looga hadlayay arrimaha amniga magaalada Gurceel iyo sidii loo xoojin lahaa amniga magaaladaasi. ugu dambeyntiina dowlad goboleedka Puntland ayaa war ka soo saartay dil xalay magaalada Gaalkacyo loogu geystay taliyihii nabad sugidda iyo sirdoonka gobolka Mudug ee Puntland. rag hubaysan ayaa xalay waxa ay waqooyiga magaalada Gaalkacyo ku dileen taliyihii nabad sugidda iyo sirdoonka gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Puntland iyaga oo dilka kadib goobta iskaga baxsaday. taliyaha oo lagu magacaabi jiray Cornel Xaashi Aadan Cilmi ayaa la toogtay xilli uu ku sugnaa xaafad lagu magacaabo Suuq Barwaaqo oo ku taala waqooyiga Gaalkacyo. gudoomiyaha gobolka Mudug ee maamulka Puntland Axmed Muuse Nuur oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in laba dhalinyaro ah oo ku hubaysan bastoolado in ay ka dambeeyeen dilka taliyaha. waxa uu sheegay in dilka markii ay fuliyeen in ciidamada ammaanka ay eryadeen kadibna ay ka baxsadeen goobta. maamulka gobolka Mudug ee Puntland ayaa sheegay in lagu raad joogo raggii ka dambeeyay dilkaasi gacantana lagu soo dhigi doono. guud ahaan daawadayaal halka ayaan ku soo gabagabaynayaa warkii aad kala socoteen Al-Xurriya News. si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee wararkeena hela fadlan channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar gambaleelkana furo si aad u heshid wararkeena 24 saac aanu soo gelino channelka Al-Xurriya News.